madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baxay magaalada Muqdisho kama bixi doona magaalada Muqdisho waxa uu ku sii jeedaa magaalada Djibouti xarunta dalka Djibouti waxa uu halkaasi shirmadaxeedka IGAD oo looga hadlayo xaaladda gobolka Tigray waxa inta badan lagu faaqidi doona shirka arrimaha ka taagan Itoobiya iyadoo ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdok uu booqasho ku tagay Addis Ababa halkaasi uu Abiy Ahmed kaga dhaadhicinayo in shir degdeg ah la qabto laguna xalinayo xaaladda Itoobiya sidoo kale shirka waxa looga hadli doonaa xiisadda ka soo cusboonaatay Soomaaliya iyo Kenya iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda Soomaaliya ay ashkato u gudbisay IGAD taasi oo dacwad ahayd dowladda Soomaaliya ayaa xiriir ku jirtay dalka Kenya waxayna ku eedeysay inay faragelin qaawan ku sameysay arrimaha Soomaaliya taasi oo meel ka dhac madax banaanida Soomaaliya sidoo kale shirkan IGAD sida degdeg ah lagu qaban doono waxa looga hadli doonaa xaaladda doorasho ee Soomaaliya iyo qaabka ay u dhacayso doorashada Soomaaliya waxa saacadaha soo socda la filayaa in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu gaari doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaasi uu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha gudiyada doorashooyinka Puntland oo aysan wali heshiis laga gaarin kadib safar uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku yimid magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ma la dhameyn ama heshiis laga gaarin arrimaha gudiyada doorashooyinka Puntland waxa maalmihii ugu dambeeyay khilaaf adag ka taagnaa gudiyada doorashooyinka Puntland iyo Jubbaland sidii lagu soo magacaabi lahaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa safarro kala duwan ugu jira sidii uu ku xalin lahaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya maadaama loo xilsaaray si dhameystirka arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya